الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم زدنا علما ينفعنا في الدارين. وإحنا كسو جيرنا كتاب كيني وحوي رسالة أها وكهل لي أحكام رمضانك. وحين كسو هذا الني وشيخ إنه قدم شي درسي جيني زكاة الفطر كيسي الله بحنا يما داب الله صوصا ويقف واجب زكاة. هذا الوقف زكاة الفطر واسكي بحيي وعيدية حتى مركي عيدي لجو حالا يعني أحكام العيد بالك وحوي حكم صلاة العيد. صلاة العيد حكم كيدو صلاة العيد سنة وهي سنة مؤكدة لا أتكي وليست معها بواجبة واجب معها لخبر الصحيحين وهو خبر كسوغان صحيحينك وصحيح البخاري ومسلم درتيس بيسن واجب هين والنبي صلى الله عليه وسلم صحابيgaas intuu faraydii weydiiyey oo nabigu ugu jawaabay qol su'aal kale weydiiyay wuxuu yiri hal calaya korkayga ma ku sugnaatay qayruha farayda wax qayrkooda qaala nabiga sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri korkaaga kuma sugnaan illa anta dawacayna tadawuc samayso sunna la timaado mooyee wax kale laguma laha. waaya halka marka waxaan ka qaadanaynaa xukunka salaada ciid waa sunno la adkeeyay hadii aad samayso ajir iyo thawaab aad helaysaa hadii aadan samayna ma dambaabaysid. xilliga marka aad tukanaysaa halkan xilliga buu ka galaya xilliga aad tukanayso waxa weeye qoraxda soo baxda oo qadar ruuxmi soo leekaatay waxa weeye xogaa qoraxda markay soo baxdo waxa weeye ilaayo laga gaarayo waqti duhurka u dhow qoraxda u dhawaatay zawaalkiyo xilliga duhurka wax yar ka dhibeentay intaas salaada ciid waqtigeedii waa joogaa. waxa weeye marka xilliga fadliga badan oo dadku sida jamaacadu tukanayso salaada ciid xilligaas inaad aadido tukatid oo jamaacada la tukatid sidaas fadli badan oo fadilo weyn aad ku helaysaa. hadii waxa weeye kaaba tagtona 10 iyo baba soo kacday 10 iyo barkiyo 5 saac iyo ama 4 saac soo kacday xilliga salaada ciid waa tukan kadhaa labadii ragcadood. kayfiyatu salaatu ciid marka seeba waaye wixii waqtuha waqtigeedu من دلوع الشمس بو كبلامنaysa qoraxda soo bixitaankeeda iyo irtifaaci shamsi qoraxda kor noqota ila zawali laga gaarayo zawalka laga gaarayo waqti zawal qoraxdu ay xagaas galbeedka u eelanayso duhurkii yara soo yara dhow yahay ila xilligaas ay wax waqti xilligeeduna jooga oo tukan kada. kayfiyatu salaatu ciid marka seeba loo tukanaya qaabkee baa loo tukanaya waxa iyadu ragcataan laba ragcadood weey يكبر وتكبير سنة يا إمامك في الأولى تنهره 7 تكبيرات 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ولا قصر رابو تكبيرة اللي وحرينيه. وفي الركعة الثانية ركعة اللبانة يكبر وتكبير سنة يا 5 تكبيرات وحوي 5 تكبيرات سوى تكبيرة القيام اللي قصر رابو تي لوسو استاجي أنا حكوا الله يا قاب كيف تكنجوت ولا بركعات تنكوات 7 goor ba takbiirsanaysa Allahu akbar aad oranaysa iyadoo aan lagu dareyn tii salaad aad ku xiranaysi way tan salaad aad ku xiranaysi kuma jiro 7 kala la iimaanaysa sidoo kale 5 baad la iimaanaysa taa ku soo istaagaysa li markaas aad soo istaagayso Allahu akbar baa laga rabaa taasi way ku jirin. istihbaabu takbiir al-awwal khudbatayn halka kana wuxuu u baabaystay in la sunnaysto takbiir waxa weeye khudbadaha hortooda awalkooda marka khudbada la bilaabayo in waxa weeye la sunnaysto inuu takbiir la yimaado yusanna waxa la sugnaya in yukabira inuu takbiirsado fi awwal khudbada koowaad fi awwal khudbati al-ula khudbada waxa weeye koowaad markuu bilaabo 9 takbiiraat 9 takbiirooda wiila an xiriira marka koowaad uu bilaabo 9 takbiirood inuu takbiirsado ayaa loo sunnaya imaam. wa fi awwal thaniyati talabaadna markuu bilaabo khudbada labaad 7 takbiiraat 7 waxa way takbiirood loo iimaanayo wiila an xiriira marka waxa la sunnaya uu imaamku soo kaco khudbadii akhrinayo inuu waxa weeye khudbada intuu san bilaabin waxa weeye inuu la yimaado 9 jeer inuu Allahu akbar la yimaado marka dambe 7 la yimaado dad yar baa sameeya waaya halkaasna waa sunni oo dii walaga abaalinaya hada sameeyay al-a'maal mustahabatu fi al-ciidayn halkana wuxuu ka galay أعمال صالحة وناكسن أو الله سنايستو عيد إن الله سميه كو أمرك كوادو إلى 10 شيء إنه شيء واي أنت بدأ وينات كوب بلوديد وأنت بدأ وينات بلوديد بالتكبير بعد غروب الشمس والرحض مركا يدعو آخر يوم من رمضان
maalinka ugu dambeeya bisha Ramadaan waxa weeye markay qoraxdu dhacdo inaad takbiirta bilowdo saas la jecel yahay oo sunnah لقوله تعالى لأجل قوله تعالى إلهي هذا الكسر درتيس وإلهي بوحو يلا بشا وحا ليدن كوا جبيي ولتكملوا العدة عدة إناد وحوي لما يسترتانين ولتكبروا إناد ويناسانين الله معبود كإناد ويناسانين على ما هداكم وحاودن كوهنوني ولعلكم إناد أشكر دانين ولعلكم واحد بدنتين لتشكرون لكي تشكرون إلهي سبحانه وتعالى إناد وما هذه سانين ويه وأعمال لجعليه وينتهي بتكبير الإمام وينتهي وحكول ما نسى بتكبير الإمام إمام كتكبير لصلاة العيد صلاة عيد وإمام التكبير صدا وحوي أي كل ما نسى تكبير تمركا ملاسكا وضيا بشر رمضان مايا مركا إمامكو والتكبير تصدى مايو صلاة العيد اللي قاسي دمانة وينتهي وحكول ما نسى وحوي تكبيرتي بتكبير الإمام إمامك وحوي تكبير شيء لصلاة العيد صلاة العيد والتكبير صلاة العيد مركو دميو وإمامك صلاة كبحو مركاس أي كل كانسا وهذا كازنا في عيد الفطر وعيد الفطر أما عيد الأضحية سوى كدوية وينو إيمانا يايو إسا أيام التشريق غردان أيالا تكبير سنة وأما عيد الأضحى عيد الأضحية سوى ما فيبدو حكا بلا منا فيبدو بلا بيادي بتكبير تكبير بلابة من فجر يوم العرفة لقى بلابه صباح ذا وحوي مالك عرفه إلى غروب الشمس إلى لقى جاري قرح دعتان كذا في آخر يوم من أيام التشريق مالك وقد ما يسا أيامها وحوي البورات وتشريق صدحنا مع الموضة انت تكبيرته وضيع ويكبره تكبير سنة في عيد الأضحى عيد الأضحى خلف الصلوات المفروضة خلف الصلوات صلاتها وحوي قضاشودا المفروضة وحوي لفر ليالي أيو وحوي تكبير سنة صلاة مركو كبحو أيو تكبير تلا يمانا يسدح من ودوس بنوضية من صبحي لقبل يوم العرفة مالك عرفة الصبح ديسا إلى العصر لقى جاري من آخر أيام التشريق عصر كان قدام أيام قدام يسا مالمها البوارة أيام التشريق عصر كذا انت صوضية لمرك لبد الاغتسال وميرشو قبل الخروج لما يرتو قفكم مركو بحيو انتوسان بخين انو قفكي ميرتو والجلوس انتوسان فريسان في مصلاك ماشي waxa weeye oo ku tukanayo musalliisa intuusan fariisan inuu qofkii inaad meerato ayaa waxa weeyaduna wanaagsan waxa kale oo la sunnaysa anta tajammala inuu qofkii anta tajammala inaad isqurxiso dheh watalbasaad xirato ahsana thiyabika dharkaaga kale ugu wanaagsan inaad xiraatid isna qurxisid ayaa la sunnaysa maxay maalinkaas oo yawmul farax oo dadku waxa weeyay aragtidaada ku farxaan baa raba waxa kale oo kamid anta kula inaad cunto tamraat timirooyin inaad cunto witran xaalay timirtaasi tahay saddex witri ay tahay 3 iyo 5 iyo 7 iyo 9 iyo وهكذا ويا قبل صلاة العيد intaadan aadin inaad timirta cunto ayaa la sunneeyaa بخلاف العيد الأضحى khilaafkiisu fatumsiku waad haysanaysaa waxa way wad ka afhaysanaysaa aan akl cunitaankii hatta tusalla ila tugato watan xaraad gowracdid ciidkii waxa way ciid al-adxi isaga lama wax ma cunaysido waad afhaysanaysaa laakiin ka rabadaanka waxa yara waan bishan rabadaan ciid al-fidriga inaad waxa way markaas aad timirsi wax sii cuntid hadda timir helashide waa fadliga waxa way timirtaas baad cunaysaa adiga wax kala haysid wax kala wuxuu baad sii cunaysaa saas la sunnaystay waajibna ma arinta maxaa u daliil marka عن ابن بردة وحلقة وري عن أبيه وكوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كان وحوها بيلا لا يخرج ميدان بحين يوم الفطر مالك عيد الفطر حتى يأكل إله عنو نبيه حمو سيعون جريه نبيه مبحي جريه وكان نبيه حالا يأكل ميدان عني يوم النحر مالك الجورة عنا نبيه حمعون حتى يرجع إله نبيه صلابت إله صلابت وصلاة السيوت كذو وحجورعه أو الحيدي دو waxa way deew xeeysanay marka waxa way buu xuni jiray nabiga sallallahu alayhi wasallam laakiin ka hor wax ma xuni jirin halkaan xadiiskana labada arrin baa laga qaadanaya qodobka shanaad al-mashwi waa socod ila al-musalla meesha loo tukanayo loo socdo ila al-musalla makaanu salligi loo socdo ida tayassara haday fududaato way in qofku socdo lugeeyo haday u fududaato lugtu
qodobka lixaad mukhaalafatu dariiqi inuu qofkii khilaafo fi dhihaabi bixitaanka ila musalli makaan salliga uu meesha ku tukanayo u baxayo wal iyaabi kasoo laabashada minhu kasoo laabanayo waxa weeye meeshaas uu baxayo musallaha iyadana waxa la sunnaysaa wadadii inaad bedesho wadadii hadii aad martay markaa sii socotay inaad khilaafto wada kale aad soo madho faa'iidada laga helayna waxa weeye shacairta islaamka ayaad maalinka weyneynaysaa waman yu'azzim sha'air allah fa innaha min taqwa alqulub qofka shacairta ilaahay weyneeyana ya qulubta waxa weeye la cabsiga qalbiga sidoo kale ajar baa lagu qorayaa oo dawlaha hada soo wada kale hada soo madho maalinka qiyaamada ku marxaanti kacaysa adoo halkaas acmaasha saalixa u sii lugeynayay maxaa yeelay yawmadin tuxadisu akhbaaraha radu way waramaysaa wararkeedii bay waramaysaa marka dhulka ka warbixinaya saasa marka yara wacan waxaana ku tusinaya can Jaabir waxa laga weeriyay can Jaabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma isaga bisba Allah kala noqday waxa laga weeriyay qaal inuu yiraahday kaana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ida kaana hadu ahado yawm ciid maal ciid hadu ahado nabi khalafa dariiqa uu khilaafay yani wadadii soo maray wada aan ahayn buu soo maray qodobka toddobaad waxa weeye la salaata qabla salaati al-ciid wala ba'daha la salaata salaadi ma jiddo la tukado qabla salaati al-ciid salaad ciid ka horeysa wala ba'daha kana dambaysa oo salaada ciid yani sunna kama horeeyo oo waxa weeye marka ciid timaadid meeshii lagu tukanayay salaad sunna ma tukanaysid oo de sunna ma waaya kamana dambayso markii ciid laga baxo si sunnaysan meeysid laakiin hadda masaajid ku jiddo tahiyatul masjidki ma tukanaysaa ha marka soo gasho waa tukan ka hadaan dadka ciriirinayno dhibaato aanay salaadaasi dadka soo gaarsiinay wala marka sideedaad yastaftihu al-imamki wuxuu ku furfuranaya salaada min ghayri aadaan wala iqaamah min ghayri aadaan la'aan oo looma adamayo waxa weeye imamki wala iqaama loona iqaami maayo wala salatu jaami'ah ma oranayo dadkii waxa weeye salaad jaami'a min tukanayna ugu dhawaaqi maayo wala ghayriha wax kale ugu dhawaaqi maayo salaada isu galaya sida takbiirta loo wado ayaa istawlo oran oo dadkii sinta loo oranaya loomana adamayo loomana iqaamayo wax kale ku tusinaya salaad jaami'a in la tukanayna ma sameeyay way shan waxaan la sunnay lamarka sagaalaad an yaqraa inuu akhriyo jahran si kor uu akhriyo fi rak'ada koowaad bacda al-faatihati faatihada ka gadaal suuratu qaaf inuu akhriyo aw sabbih isma rabbika al-a'la inuu akhriyo suuratu sabbih isma rak'ada koowaad labadaas suuradood inuu mid akhriyo hadii marka qaaf ee xooga nabigu akhrin jiray sallallahu alayhi wasallam laakiin hadii ku yara dheer tahay dadka sabbih isma rabbika al-a'la suuratu al-a'la baad akhrinaysaa wa fi thaniyatina talamaadna suuratu al-qamar buu nabigu akhrin jiray oo yana sunna suuratu al-qamar baa marka akhrinaysaa iqtarabat as-saa'atu wa inshaqa al-qamar ama waxaad akhrinaysaa aw amase hal ataaka hadithu al-ghashiya suuratu al-ghashiya hal ataaka hadith ayuu akhrinaya qofkii qodobka tomnaad waxa wada al-istimaacu dhageysi ayaa sunnaaba oo la jecel yahay khudbada la dhageysto khudbada inaad dhageysatid oo dhagta u dhaadhicisid ayaa iyadana la jecel yahay qodobka 11aad at-tahni'atu wa hambalyayn fil ciidayni labada ciidood la isugu hambalyaynayo yaqulu wuxuu oranaya bacduhum barkood li bacdin barka kale ida laqiyahu markuu la kulmo taqabbal Allah ilaahi aqbalo minna anaga iyo minkum idinkaba salih al-a'mal a'maashateeda wanaagsan taqabbal Allah minna wa minkum salih al-a'mal ayu oranaya way ducadaas u akhrisanaya فهذا القول هذا الكلام إنه سوى شيء إنه دعاءنا قد روي وحلقة وري عن ضائفة كوحو من الصحابة كم إذا أنهم كانوا إنه يفعلوا له كوارن كاسمية قضب كلبيتهم ناد للرجل نكي وحوسه ناد أن يوسع إنه واسعيه على أهل بيت كيس في هذا اليوم مالين كاس بالأكل عنتان كي والشرب عبيتان يو بشيء إنه واسعيه شيء قاسو من الله وعيارته كم إذا عيارته المباحي بناناي وايه دنيكي إنه إسكالا بحيو وحوي مالنكاس هيركي وحوي وحفي عن أصاميو عرورتي وح عياره بناناي إنه وحوي أصاميو تاسع الله سبحانه وتعالى أعلم وأعلى